الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ولا الله عنوان كيدورتين وشاب نشأ في عبادة الله، وقطع من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه متعلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتلمامية تضبقف ومالنت قيامها بدبادية dhibta qiyaamaha ka badbaadaya. maalinta qiyaamuhu waa maalin dheer sida nusuusta quraanka tilmaamayso. 50,000 sana ayaa meel la taagnaanaya, 50,000 oo sannadood oo dadka la xisaabinayo. waa maalin dhib badan, waa maalin dadkii hore iyo dadkii dambaba khalqiga aadam ilaa iyo ka u dambeeya la isu wada keenayo ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لوغا أبال مريو كوي حمها السميين وحي قلبدين، كوي وناق السميين لوغا أبال مريو وناق. ومال إلهي إن فرين نؤدي يرقرونه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وما لن إلهي كنت الماميو قلقلا كيدو إنو أدقيهي. إذن مالن تاس ومالن دالي يردو قبودو. إلهي بقرآن كوحكولي: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. حيدي يلي با إلهي لي هذا كعب سويدان، يعني هذا كقالودان مال عرورته أي عفرالا نقطه حول كي يبت تاغن. ومالون النبي عليه الصلاة والسلام كنت المامي حديثك صحيح مسلم كويا الله إن عدعيدا لسو دوين دونه إلا يقدر ميل ودو أيمن دونته دبتنا عدعيدا لسو دوين دونه كمقدار ميل. وحاو نبو كنت الماما يددكو انت يديدان أي ديدد كودو دولك قلي دونه dadka qaar baa dhididkoodu canqawiyada u joogsanaya, daad kugu noqonaya. qaar buu lawiyada soo gaadhaya. qaar buu nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam inuu garabkiisa gaadhi doono. qaar baa lagu tilmaamay inuu guntigiisa gaadhi doono. idan qaarna wuu hafin doonaa baa la yidhi. waa maalinta kulaylku uu keensanaya waxaa soo dhidida, waxaana dhididaysaa calaa qadri dambik, sidaad u dambaabtay hadba intay leeg tahay. حتى النبي عليه الصلاة والسلام حديث قال الصحيحين كي الله وحو تلماميا ديدت كاغوينو تضباطا باع تضباطا ذراع ردن إنو دولكو هوسكا وقالي دونو قار كودنا دادك إنو إلا دقاها قاري دونو. إذن مالنتا سيدا وهولك إيا دباطة إيا مشاكلك بدن له دادك وحو الرادين دونا من ملجأ meel lagu gabado. wuxuu bini aadamku raadacayn doonaa war wax la harsadaa ma jiraan. hadhna maalintaa waxaa jira la leeyahay carsh araxmaan faqad.
dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maalintaa dadku kadeedku ku sugan yahay dadka maantaa hadhsan doona waxaa ka mida buu nabigu yidhi 7 dadka maantaa dhibta intaa le ka bixi doona iyagu hoos qabow fadhiyi doona ee cadceeddaa soo dhowaatay ee dadku dhididku halkaa marayo iyaga ilaahay ka badbaadinayo 7 qof baa ka mida buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam 7dan waxaa ka mid ah imaam cadaalad sameeyey imaamku waa maamul ummad ninkii maamulayay ee ummaddaasi cadaalad kula dhaqmay ummad ciidu cadaalad samaysay waa camal aad u weyn waxaa kaloo ka mid oo ninkaa la daba dhigo oo nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam nin dhallinyaro ah oo ku barbaaray amase ku kobcay ama ku koray ilaahay cibaadadiisa waxaa kaloo nabigu raaciyey dad asxaabu mawaaqif ah nin qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay oo markuu jamaca hore soo tukadaba wuxuu ka warwarayaa jamacii dambe goormuu bilaabmaya wuxuu kaloo nabigu tilmaamay 2 ilaahay dartiisu jecel oo diin iyo mabaadi'i walaalaysay isuna keentay kuna kala taga waxaa nabigu kaloo tilmaamay qof mowqif leh oo gabadh wixii loogu xilan jiray oo dhan lihi magac iyo maamuus iyo quruxba lihi intay u yeedhay diiday oo yidhi ilaahay baan ka cabsanaya wuxuu kaloo nabigu tilmaamay qof keligii ilaahay intuu isu taagay ilmeeyey cabsi daraaddeed waxaa kaloo nabigu tilmaamay mid waxay midigtiisu bixiso bidixdiisu aanay ka warqabin waxaa midigtiisu bixiso bidixdiisu aanay ka warqabin haddaba inagu xadiidkan hal qodob baa cinwaanka inoogu jira shaabun nasha'a fii cibaadati illah dhallinyaro ku kortay ilaahay cibaadadiisa riwaayo kale oo saciid ibnu mansuur uu sunankiisa ku soo saaray alxaafid ibnu xajarna uu ku leeyahay isnaadkiisu waa xasan ayaa salmaan alfarisi wuxuu soo aroorinayaa inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam warajulun afnaa shabaabahu wanashaatahu fii cibaadati illah nin dhallinyaro ah oo ku bixiyo ku mariyey dhallinyaronimadiisii iyo firfircoonidiisii ilaahay cibaadadiisa ayuha alxiba horta dhallinyaronimadu waa nicma nimco inay tahay waxaad ku garanaysaa waxaa la yidhi ahlu jannuhu da'da loo doortay waa inay dhallinyaro noqdaan jannada marka la galo da'da jannada lagu joogaya waa da' dhallinyaronimo ina lakum an tashubbuu falaa tahramuu abada buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu odhanayaa kuwaasi dhallinyara ahaanaysaana weligiin gaboobi maysaan carruurnimaduna waa ciil laga koro waayeelnimada dambena waa cajsi iyo daal iyo dhib badan tahay inta dhexe ee dhallinyaronimada lagu tilmaamo intay ku dhammaataa dhallinyaradu waa iska masala khilaafiya laakiin horta waxaa la hubaa 22 ilaa 30 inuu nin dhallinyaro ah yahay da'daas oo ah da'da ahlu jannaah waa da' xoog badan waa da' marka uu fakaraya ra'yigiisa caadiga geeridu ay la fogtay ninka weyne hadduu in yar yara xanuunsado wuxuu is yidhaahdaa wartalow matii ay kaaga dhammaanaysayba laakiin ninka dhallinyarada ahi wuxuu iska rumaysay inuu berri ka kacayo ninka da'da ahi dhakhtarka markuu tago ballanku ma dhammaado 3 bilood dambe ilaa lama bogsadaba mar haddaad daayaa qaar gaadho soo noqodaasuma iskaga jiraysa ninka dhallinyaradii laakiin wuxuu rumaysan yahay hadduu 2 goor ku noqdo kale dhakhtarba maaha waayo wuxuu rajaynayaa markiiba inuu isagu fidh yidhaahdo oo boodo marka waa nin amalku nolosha ka qabaa dheer yahay dhallinyaradu waa nimay geeridu la durugsan tahay ninka dhallinyarada ahi waa nin muqhriyaadku waxyaabaha bini aadamka lumiya ay ku xeeran yihiin siiba casriga kan ninka dhallinyaradii inta badan
ونن جدهان عافمات قبه نن يقبل خودانا بهالنقطة وقف جدهان عافمات قبه وقف وحيابها كين يلهويجو أي اكتسكوا بدنيه نكر اللي يرضى أما قبل اللي يرضى وقف أن تجربة لهين قفكم مركو دق قاعدو experience واحد بدن بو كردية واحد بدن بو كقاب صدا خبرته هي درادد لكن نكر اللي يرضى واحد استوت كبودي كرتاية وتصحي كرتاية بو يسلي experience كاسي ماله ونفتي سامه هو دي سكو كنترولي كرو هذا ما دام ورميسينا وقت بدن بحري كل يبقى حاجة ضمن مركز وياه لو دابت كتوبت كاني أفكار تسد اللي يرضى وكو بدنت هذا ما نكيسكو دأنا تشوجة عبادتنا اللازمة دي برضه مدعي على هيدني كتشوجة لكن انتو نفتح حكمية كو حكمية إلهي الشرع جيسة قبلنا نفتح حكميسة كو حكميسة إلهي الشرع جيسة كو حوق بطه شهوات كيسة هي نفط واحد دونيسو النفط كعريريو كقصبة إلهي عبادتي سين كسقناطه نينك سوحو كمدي أما قبل سوحي كمتهاي ضدك النبي محمد المامي عليه الصلاة والسلام ما لنت لك كديدين يهي إن أنا يو كديد كاسي كتشرين إن يو عرش الرحمن هرصريا استدردد بالنبي عليه الصلاة والسلام حديث قالوا إمام الطبراني يا أحمد باي صارين شيخ الألباني وليه سنة كسوة جيد وحط المامية إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له ربي وحو لعجب أبو النبي عليه الصلاة والسلام نكر اللي يرضى إيه أن وعدك لهي نكر اللي يرضى يقول من صبوة اسم مرة مين الآن وفعل مرة من ميل إلى الهوى صبوة ويان هذنا وهي المرة منه نكان مرة بوعا ربي ولا عجب أبو النبي عليه الصلاة والسلام يعني إلهي أكتي سوى قف قيمة كله إلهي أكتي مركا اللي تشوقه نكان اللي يرد أن وعوعتك أقول قف كان اللي يرد السوق ناضي إلهي أكتي سوى قف قيمه هي ميزان قارق له أيها الأحبة سيدا وقد بقى حديث بدنا مغلسين بدنا ولا قور رميو آخر السؤال هجار كل سويدين يوحى كمده ضل يرني مدي وحدكم بحسي وعن شبابه فيما أفناه يدو عمر قردن لقويدية أي سيجار لقويدين يرنمو إلهينا سبحانه وتعالى قرآن كي سوحو كت المامية ضدو أمانيو أيها ليدو ضد ضل يراه أمان دراديت ووكوه وضلنتي قصورته كهوفته كدورتي قريها بقرطوية ده أي كب حينا وحي دورتان إني قد كن نولادان لأجل إني إلهي تيسا إلاليان إني عبادة دود الصحرات والصورة ده إنه ما لنك استوعش مع آخرنا وحال الربعين لنا حسوسية ضدك كان يفعل دودي ولذلك بل إني لتش معك استوحى الصناء إنا دخل سورة الكهف سورة الكهف أفرق سوء عجيبة بيك والرميسة أفرت بأيوبة هي الحسوس شوكتاء أفرت قصائي مكاكا والرميسة وحكم ده قصة فتنة الدنيا أردلينيرو أيضا اسكردكتاي إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بإلهي وأردلين رب قد رميي أننا نهانو نكردني بإلهي سبحانه وتعالى سيدا أوجد أي النبي عليه الصلاة والسلام حكب بورنا يا دليران مدو فرصة لقى غنيمة استينيتي فرصة أباهن غنيمة لكن مع الأسف دليرتو أنت بدن فرصة داسي عيار يبود يداوشو يوحق لكل مياه نبي محمد نوح عليه وروختي قاسي عليه الصلاة والسلام ووقت غنيميسو باهن سدردد ونبول الشنك غنيميسو انت انشانكو ايمن
وردل يراني ماذا كغنيميس كفائدة سبو نبو لي انت انقبقو كويما مركز ويراته عقل قاقو سفي عمبو فكرية تجربة دي سبيري نسكو وحبدا بيكو شيغيان لكن تمرتو وحير بيفولين كريسة تمرتو وحير أي فولين كريسة وحب الله رأنا مسكح واركي كريسة أما نكا دالي يرضاهي وحو دونو فولين كراه سادرات دون بقولي وارنت ضلنت تهي كفائدة انت انت قبوبين انت عافمات قبت كفائدة انت انت بكون نكا دالي يرضي مصلي وعافمات قباه وروختك عافمات كفائدة سيبون بقولي انت انت حنوصني وقتك غني النمدة غنيكو ما هو قرى مالك طبعا مالك هو كمد لكن عافماتك كمده قناعتك ورغني لماذا هذا كفائدة سين تانت فقرين وحول البواين فراغضة نكاد اللي يرضى حديد كيسو يري مركا أدوينا طب حديد كبنادم كاكو قصي بدنية مسؤوليات كاكو قصي بدنية أباد نغون أووباد نغون أديرات نغون ريرباد وبوينان طلبات يالن دون تادي كاكو قصو هفتا نولا الشباب الغولي يالنية مركا تصبحي صوت توستو انتهت قرقا كاكعن طبان بروبلم وانا هين kuwii adigu aad xalay qorshaysatay inaad qabato ayaa albaabka ku taagan laakiin ninka dhalinyarada ahi waqtigiisa isaga iska leh cid lama laha waa sidoo isagu u plan garaysto no one bother garaynaya cid kale oo ka soo dhexgalaysa ma jirto sida ogeed buu nabigu wuxuu leeyahay salaatu wasalaam war firaaqadaada ka faa'iideyso inta aanad mashquulin نولش كفايدة سبنا بقولين تانت جيريونين حديث إمام الحاكم باورينيا يبيقي شيخ الألباني صحيح بقول المامية هذا اللي يرى ماذا أنت أكلت المامية وحا أنت المامية إن هذا بقيت إنوس عنوة شاب نشأ في عبادة الله نند اللي يرى أو كبر باري أما سكوكوري أما سكوكعامي إلهي سبحانه وتعالى عبادتيس عبادة مكرمنا للي يرضوا محمد مساجد كفرفردية بها وحين ربنا للي يرضوا انت مساجدك شيء أنا كصابحين مايا قفك الصومالي قاين تبضان كالجر كوحي ينبري مفاهيم عبادة إنه هيستنا إن انت بدن كو اكتهي صلاة إيو قرآن أخرسك إيو ورد إيو وكمد وعبادة كو وين بيكو جيران لكن قصرن انت أسين كسو كوبن كما إلهي القرآن كوحو كلي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نبي محمد با إلهي وحكولي عليه الصلاة والسلام وحط الأهضاء أنا الصلاة دايد وعبادة محضة نص قيقو قورعة أما عبادات كورنبا نولا الشيدة محيايا نولا الشيدة دمانتي قيري دايدة وحنور ديمان إيه وحنفتو بحين إيبا دمانتو دي إلهي باسكاله معنى يدوى محي قفك مسلم كي نولشو دن عبادو كردقي كرا هدو حقا لو لقستيو هدو وحي انحرافة وحي قلوعي ذنبي كإلاليو انت كلنا ونيسان كلي ما ده وعبادة نولش ايدي وحوردن عدنا لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين عدنا إله لو ذاتشن مايو معناه دمحوي أن حديثك كلا روايات كلا قد يسمكوا صار ورقار صحيحين كويالين بل رواية مسلمة متلمامنا أبي ذربة وحيري نبي عليه الصلاة والسلام صحابة سيقار كمداويني ولي بوحى لي هذا كويان وحبه يسمى هاي دبتنا وحي هذين ذهب أهل الدثور بالوجور إلهي الرسول كيسيو أتشركيبه وحالته كوي حوله لها وسيولته ويشيكتنا وحي هذين ويتكدان سيدا نوتكنه
way soomaan sidaan u soonno dee lacagna way haystaan oo wixii khayr iyo sadaqo oo dhan bay ku bixinayaan lacagtooda dheeraadka annana agtayda lacagtii ma taallo marka waxay leeyihin nimankana ajarkii iyagaa badsaday xal ha la keeno nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi oo idinku waxaa sadaqadaysataan miyadan haysanin wuxuu barayaa nebigu sadaqadu inaanay maal qura ahayn saa daraaddeed wuxuu yidhi idinku waxaa sadaqadaysataan miyadan haysanin wuxuu nabigu ku yidhi war hadda subxaan allah kastoo aad tidhaahdaan waa sadaqo allahu akbar kastoo aad tidhaahdaan waa sadaqo alxamdu lilah kastoo aad tidhaahdaan waa sadaqo kuwaasi waa dhan oo ninka xoolaha le intuu xoolaha ka shaqaynaya xisaabinaya mashquulsan yahay adigoo iska wardayi kartaa ma intaad meel fadhiisataa aad wardayaysa maya adoo shaqadaada haysta adoo beertaada qodayaad subxaan allah iyo alxamdu lilah adaba wadaysa adoo gaadhigaaga wataad subxaan allah iyo alxamdu lilah ada odhanaysaa laakiin inagaa mafhuumka inugu soo koobmay baa wuxuu yihi subxaan allah adiyo waxaa la xasuustaa marka la tukado dadkoo dhami subxaan allah subxaan allah subxaan allah wada odhan waqtigaasaynu xasuusanaa subxaan allahda waxaynu xasuusanaa marka aad tidhaahdo wardi war bal tusbixii mee laakiin waxay ahayd qofka muslimka ahi noloshiisa war carabkaagu ilaahay dikrigiisa yuu ka engegin buu nebigu yidhi carabkaagu ilaahay xuskiisa yuu ka engegin haddaad gaadhi waddo haddaad shaqaynayso haddaad ordayso haddaad lugaynayso waad iska wardiyi kartaa wardigaasi wayse uma baahna oo waqti uma baahna oo tahaaro gaara uma baahna oo waxba kaagama baahna waa cibaada uu qofku mar kasta samayn karo isagoo shaqadiisa wata haddana wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dadkoo aa wanaagga u sheegtaana waa sadaqo qofka dadka tala fiican u sheegaya cilmi u sheegaya ra'yi lagu guulaysta u sheegaya meel wanaagsan u hagaya macruufku lama soo koobin macruuf waa wax allaaliya wixii sama ah wixii adduuniya aakhira midun wax ka tara qofka intaa dadka u sheega hadday tala tahay hadday cilmi tahay mid adduuniya mid aakhiro kuu doonayaba ha noqdo haddaad dadka u sheegto waa sadaqaa la yidhi waxaa la mid a haddaad dadka xumaha uga digto mid aakhiriya mid adduunyaba wixii dadka mahlaka iyo dhib ku haya haddaad uga digto nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu soo waday ayuu wuxuu soo gaadhsiiyey war hadda haweentaada haddaad u galmootana waa sadaqa buu nebigu yidhi bal u fiirso yani nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha bini aadamku uu brivateka u haystay uu isleeyahay malaa dee cid kale kugulama lahaa xataa taasi inay cibaado noqon karta wiilka iyo gabadha isqaba ama labada qof ee xalaasha isu ahay sariirtay wada tagaan sadaqay noqonaysaa haddii niyada san iyo sharcigu wuxuu jideeyey ay tahay waa cibaada saxaabadii foqorada ahayd ee dee awal lacagta ka ashtakoonaysay way yaabeenoo waxay idhaahdeen ooma nin baa intuu reerkiisa u tago haddana ajar loogu darayaa bay idhaahdeen yani intuu shahwadiisa iska guto ayuu haddana ajar helayaa wuxuu nebigu ku yidhi oo hadduu xaaraan sameeyo muxuu heli lahaa miyaanu dembi heleen yacni wax kastoo aad dembi ku heli lahayd cagsigeedoo khayra haddaad la timaado ajar baad ku helaysaa weeyaan taa macnaheedu waxa weeyaan uu nebigu inoo tilmaamaya marka la leeyahay shaabun nasha'a fii cibaadat illaah macnaheedu waxa weeyaan waa qof dhallinyaro ah oo inxiraafaadka iska ilaaliyay waxa kale wanaaga uu samaynayana ilaahay ula qastiyey xogsigaad arsaaq xalaal xoogsanaysaa ajar baad ku heli kartaa haddaad niyasan la timaado xadiis kaloo nebiga calayhi salaatu wasalaam imaamu tabraaniya uu soo saaray iyo kayrkiiba sheekh alalbaanina uu saxiix ku tilmaamayo saxiix ligayri kacb ibnu cujra saxaabiga la yidhahdaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa nin soo maray markaasay saxaabadii arkeen min jaladihi wa nashaatihi bay ka yaabeen nin muruqya goostay oo xooggan oo caafimaad qaba nin digdigtu ay ka muuqataa meesha soo maray dabeetana waxay yidhaahdeen yaa rasuul allahi low kaana hada fii sabiili illah ilaahay rasuulkiisiiyow waxaasoo xoog iyo raganimo ahi fiicnaan lahayde hadday ilaahay jidkiisa uu ku bixiyo
saxaabadani waxay ka fikrayaan ninkani wuxuu xoog iyo murqiya haysto hadduu ku jihaatami lahaa nin raga inuu noqon lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu u saxay fii sabiilillaahi wuxuu yihi ma goob dagaal in la tagaaba fii sabiilillaahi nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam in kaana kharaja yascaa calaa waladihi sigaaran fahuwa fii sabiilillah hadduu u soo baxay buu nebigu yidhi carruur yaryaroo uu dhalay inuu dee arsaaqdoodii raadceeyo hadduu u soo baxay ilaahay jidkiisii buu ku jiraa buu nebigu yidhi u fiirsa hadda carruurtuu dhalay hadduu u soo xoogsi tegay buu nebigu leeyahy xoogsi xaraana uu rabo kuwa inuu cifadooda iyo wanaaggooda ka shaqeeyo fahuwa fii sabiili illaahi buu nebigu yidhi wain kaana kharaja yascaa calaa abawayni shaykhayni kabiirayni fahuwa fii sabiili illah hadduu u soo xoogsi tegay buu nebigu leeyahy laba waalid oo gebgaboobay inuu dar yeelana ilaahay jidkiisii buu ku sugan yahay wain kaana kharaj yascaa calaa nafsihi yacifuha fahuwa fii sabiili illah war hadduu soo baxay buu nebigu yidhi cidna korin maayo tiisuu korinayaa naftiisa inuu ka ilaaliyo xumaha oo uu khayrka ku sugo oo cibaadaysto oo uu taa xoogsigeeda uu u soo kacay fahuwa fii sabiili illaahi buu nebigu yidhi ilaahay jidkiisuu ku sugan yahay wain kaana kharaja yascaa riyaa'an wa mufaakharatan fahuwa fii sabiili shaytaan hadduu u soo baxay dhoolatus buu nebigu leeyahy iyo faanfaan dhallinyaradu marmarba intay garan yaroo gacmo gaaban markuu jidhka dhisto cabbaar intuu garan yaroo gacmo gaaban xidha iyo surwaal yaroo ku dheggan ayuu meelahaa marmaraa isagoo muujinaya sida uu fidka u yahay ama u murqiya goostay nebigu markaa wuxuu yidhi hadduu wuxuu u soo baxay ay tahay faanfaan iyo ismuujin markaana sabiilu shaytaan buu ku jiraa buu nebigu yidhi jidka shaytaan ku wadaa idan meesha xadiidkani muxuu tilmaamayaa waxa uu tilmaamayaa qofku wax kasta oo sharcigu baneeyey oo xalaala hadduu qabanayo niyo saalixa isagoo wata inuu ajar helayo idan markaynu leenahay ninka dhallinyarada cibaadada ku koray ma aha macnaheedu nin dhallinyaro masaajidka fadhiyo aan ka soo bixin oo nolosha kale ka hadhay hadhowna sooshyaalka wax soo weydiista kaa kama warramayno waxaan ka warramaynaa nin dhallinyaro ah oo xoogsada oo tukada oo waxbarta oo waalidkii u khidmeeya oo nolosha wuxuu qaban karoo dhan qabta oo dadka hanuuniya oo khayrka horseeda oo ka shaqeeya wixii wanaaga oo aan xumaha u weecanino markaynu idhaahno fii cibaadati illaahi buu qofkani ku koray waxaan leenahay waa qof nolosha adduun effective ku ah waxqabad ku leh activity leh laakiin activitygiisiyo wuxuu qabanaya ay tahay wax sharciga waafaqsan waa qof xumaha ka guuray oo samaha dhankiisa u guuray haddaba ninka dhallinyarada ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaashaas uu ban waafajiyo ee jeclaysiiyo ee rabbi necbaysiiyo xumaha iyo faasiqnimada oo loogu gargaaro inuu waxaa wanaagsan sameeyo sababtoo ama ahaatee aabbiyo hooyadiiyo si fiican u rabeeyey ama ha noqoto saaxiibbo wanaagsanoo uu leeyahy waayo saaxiibbadu hadday wanaagsan yihiin dhanka wanaagay kuu kaxaynayaan sabab kastaba ha noqotee oo ka dhowrsanaaday wax badan oo dhallinyarada lumiyo lahwi iyo lacib iyo boodbood iyo wakhtigoo lagu cayaaro ah ama salaadii iyo waajibaadkii oo la dayaco ah ama xaaraantii iyo maladaadkii iyo shahwaatu nafsigoo la gala ah qof kasta oo waxaa ka dhowrsanaaday wuxuu ku jiraya fahuwa fii sabiili illah waa kuwa ilaahay qur-aanka ku ammaanee leeyahay innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda waa dhallin rabbigood rumeeyey annana hanuun aanuu kordhinay baa ilaahay leeyahay dhallintani wuxuunbay go'aansadeen inxiraafka iyo gaalnimada inay ka tagaan dabeetana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wihiiliyey haddaba markaynu idhaahno
qofka fii sabiili illaahiga ninka dhallinyarada ee ku jira ninka dhallinyarada ee muslimka ee askariga ee dalka iyo dadka iyo ummadda difaacaya ee ilaahay dartii u difaacaya fahuwa fii sabiili illah ninka dhallinyarada ee taajirka ee baaca mushtarka ee xalaal xoogsanaya xaaraan ka durkaya fahuwa fii sabiili illah ninka dhallinyarada ee beeralayda ee beertiisa qodanaya ee xalaal risqa raadinaya fahuwa fii sabiili illah ninka dhallinyarada ee dhakhtare ummadda daweynaya waxtaraya ee ilaahay dartii u samaynaya fahuwa fii sabiili illah ninka dhallinyarada ee muhandiska ee camaa'irta dadku ku noolaanaya iyo nolosha wixii fududeydin lahaa dhisaya dhisma ka shaqaynaya fahuwa fii sabiili illah ninka dhallinyarada ee dadku wixii ay u baahnaayeen masaanic iyo factoriska warshada uga shaqaynaya fahuwa fii sabiili illah waxay leenahay qof kasta oo xooggiisa iyo carabkiisa iyo qalbigiisa khayr ku wada waayo acmaasha aynu qabanaa waa intaa miduun imaa inay tahay camal qalbiya waxa la rumaynayo cidda la tala saaranayo acmaasha qulubta inaad wanaag noqoto inta xumaan aad ka boodo acmaasha qulubba acmaalba qalbiga degta xuma ah isla weyni kibir dadkoo la yaso waxaasoo dhammi waa acmaal qalbiyeed acmaalba qalbiga gasho ah naxariis tawaaduc dadkoo la cafiyo qofkoo naxariis bata waxaasoo dhammi waa acmaal qalbi acmaal qalbi oo kale waxaa ilaahay oo la weynayo rasuulkiisa oo la weynayo calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah acmaasha lisaanka carabka acmaasha ka soo fusha oo ah inaad wardido inaad qur'aan akhrido inaad samaha sheegto inaad cilmiga dadka bartid mid adduunya mid aakhira kuu doona ahaado wax dadka anfacaya inaad bartid waa wax carabka lagaga shaqaysto waxaa ka mid ah acmaal jidhka laga qabto salaad la tukado jihaad la galo acmaasha jidhka laga sameeyo o dhan waxaa ka mid ah acmaal maalka gasha xoolo la sadaqeeyo lala baxo ilaahay dartii loola baxo sidaa ogeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam si caama wuxuu u leeyahay ninkii yidhi wari waani ilaahay rasuulkiisiiyo isagoo waaninaya wuxuu ku yidhi iqtanim 5 qabla 5 shan horteed ka faa'iidayso waa xadiiskaynu soo sheegnay sidaa ogeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamaya ninka dhallinyarada ee dhaqankiisu kaa noqdaa inuu yahay qof ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la yaabo siduu u dhowrsanaaday u wanaagsanaaday waa dhallinyarada kuwa ilaahay qur-aankiisa ku tilmaamay naxnu naqusu calayka naba'ahum bilxaq inahum fitya baa ilaahay yidhi warkoodoo dhaban kuu sheegayaa baa ilaahay yidhi niman dhallinyaraa bay ahaayeen maxay idhaahdeen nimankaa dhallinyarada ahi faqaaluu rabbuna rabu الsamaawaati waalardi lan nadcuwa min duunihi ilaaha laqad qulnaa idan shatata ilaahayna wuxuu ku abaalmariyey fa'wuu ila alkahf yanshur lakum rabbukum min raxmatih wayuhayi' lakum min amrikum mirfaqa maxaa ka qurux badan dhallinyaranimo iyo cibaado laysla helo maxaa ka qurux badan dhallinyaranimo iyo wanaag laysla helo qofkoo dhallinyar ah oo qof qumman ah qof kibray oo boodboodaya aan ahayna qof xaqa u taagana nebi ibraahim isagoo dhallinyaraa buu tolkii oo dhan ka hor yimi asnaamtiiyo waxay caabudayeen waa kuwii lahaa qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim waxaanu maqalnay wiil dhallinyaro asnaamtan iyo waxa kan ka warramaya burburintooda u badheedhay xataa in la gubo ilaahayna uu leeyahy waxaanunu qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim ayuha alaxiba xadiidka kani marka uu ka warramayay acmaasha inta badan acmaasha kale waa la xadiday toddobadan la yidhi waxay hadhsanayaan carshuraxmaanka acmaashooda kuwa kale waa la xadiday mid cadaalad quraa lagu xadiday mid dhowrsanaan zina uu ka dhowrsadaa lagu xadiday mid mowqafa inuu
ilmeeyo markuu ilaahay xusayaa lagu xadiday mid waxa lagu xadiday xoolo bixin qura lagu xadiday qaar waxa lagu xadiday jacayl baa lagu xadiday ama markii ninka dhalinyarada laga waramayay xad ba looma yeelin isaga nasha fi cibaadati illaahi baa leeyahay ay mowqif istaaga isagu wuu keensanayaa meeshatan idan dadka kale oo dhan mawaaqiftoodu mawaaqif go'an inay qaataan baa la xadiday ama ninka dhalinyarada waxa la yidhi cumuuman nasha fi cibaadati illah nasha fi cibaadati illaahi waxay noqon kartaa inuu imaam caadila noqdo waxay noqon kartaa inuu ka indhihiisu ilmeeyaan noqdo wuxuu noqon kartaa kan wax sadaqadaysanaya inuu noqdo wuxuu noqon karaa kan zinada iska ilaalinaya inuu noqdo wuxuu noqon karaa intanba midaan ahayn oo cibaadaadkii kala samaynaya isaga markaa looma qaydin وبدون حد مجرد إنه كتشر ونوح عبادة أيوم بايساق الله قامي ساسو يسوي كهلا يا بالليري إنه هرصاده عرش الرحمن دي دين تن إسلام كان هذا دبو نقطان رجي حنباري بريا قلبيت بكري دي عدو البكيس هرتاقي ففي الدنيا دقارسية هذا دلني رأيها يا نما سو بدناية النبي محمد بقى فرتن شربا لوجو وحيود سحابة دي شنو كير يرايه أبي بكر صدح سنو كسيرة عمر دوري لا تنشربوها سعد دوري تنشربوها علي بن أبي طالب دوري تنشربوها معاذ بن جبل دوري تنشربوها زيد بن ثابت دوري تنشربوها الأرقم ابن الأرقم دوري تنشربوها هذا ترى الصحابة أنت دلنت هاي أنت كله وحرسله وحبضان أنت دلنت هاي دوري تبان دوري الله واتن بل وحيرا رجع صدق قاعدة وحيرا أبي بكر وحوجا يرو كله أي صدق جرده سو قاعدة إذا دين تندت حنباري اللي يرى هاي اللي يرو أي هاي هذا يتي وحي القرآن اللي يرى قريسة كتاب القرآن نكي لوحل صار ده زيد بن ثابت اللي يرى أبوها لحدين هو قامين يقرأ كينو قرأ كتاب إلا هدان اسبدلين قرآن كودي وكوي الله نن اللي يرى أبوها كوي دقال دقالي رقد اللي يرى أبوها هاي كوي وحك استقبني اسمع مني صحابة وحلي واحد شري لمن اللي يراه أو قراء الله يراهضه أو أنت يمادان مالنتينا مساجدك habeenkiina masaajidka jooga maalintii way baxaan biyay soo keenaan oo dadka masaajidka u soo dhigaan si loogu weysaysto way baxaan way soo xaabaystaan dabeetana way soo iibiyaan xaabada markay iibiyaan wixii ay ka helaan bay cunno soo siiyaan ahlu sufaa masaajidka u keenaan xawaalay 70 dhalinyaro kamida habeenku waa cibaadaysanayaan النبي عليه الصلاة والسلام وحبي كبرنايان ضدك مساكين أهل الصفا بيعاونيان مسلم كلام الساعد كنت كذا بإحسان وصمينيان يعني حق فرن وهذا اللي يرى محي حق فرن وهاي مواطنتي النبي عليه الصلاة والسلام ويشتاق يردمي ركي دين السعودية ده اللي يرى عباد الله محي هاي ابن عباس ابن عمر عبد الله بن عمر دنيرو ابن عمر واكله كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن الشباب انا قلنا لي يرى بانه انه غريبين انا الهين مساجد كيس سيحن جيرين بتلماميا ابن عمر مساجد كانوا انه سيحن جريبولي وقوا لو تلماميو شباب من الانصار تضباطن اهي والقراء لو دن جيري اني مساجدك جوغي جيرين oo maalintiina ay shaqooyinka qaban jireen habeenkiina ay nimanka cibaadaysta ahaan jireen dadkana taageeray ahaayeen idan dhalinyaradu laba cillo ay leedahay labadaas aan idinka digaya ku gabagabeynaya laba cillo ayaa jira laba xanuun oo u baahan yihiin dadka dhalinyarada inay iska ilaaliyaan xanuun dadku inta badan u yaqaana waa suuq galka
وإنه ننكو تصيب حماها سفضت بالله بلابا انت بدن وان ستيب ما انت السيجار كلا تشابيه 16 مركز سوق صفته مال الافراد انا سيجاري عبد نونسا خمره مال اللي يريد تشابيه مال انت فضلات انا خمريه عبد صباح حسا سوقها بينا والله بلا تشابيه برقه دنبن الروتين والله صفت دي حد ودد السيتاغ ما نونسا اذا كاسوا انحراف وتصيب وين الترين كدعده هذا سيدا وقد عدنا وحا أدق إنها تصور نغط بل وحا لغا يبا آخرية دون بينات بعضه كا انت بدن دكو اسكوانية بدك كلابا يسنجره دلن يردو مركي عبادة قبصدان أي قمانان قبصدان وحا هبون يغنى إن لهاقو أن لسيدين إن لهاقو وأن لسيدين قارب حاجة كلاو قدعه حاجة كلاو قدع محان وجهنا نولش ميزان كذا كلمة ده بتنوح بو تربضية ولو طاعنها النقطة ده بتنوح كلوك واحد جود بيه مثلا عبد الله بن عمرو بن عاص به وجوري سواء اللي يراه مركي له جوري نكنا وحنا قرآن أخرس بدن أو صام بدن هبين كنا وتاجي قرآن بآخرية مال تير صلاة هبين كنا قرآن يه صلاة بوضع مال تير واسفمية هاي إن أنتي لو مهريينا كان في كذا وما طابن اللي هو إن مالنا صومن هبين نتاجني أبي هذا صوم روح الوار بالورما إن أنتي بيد بالور نعم الرجل هو رقصة في عم بيتي مسارك معناه أبى يوتل مارت وجود مرت رجنا ووفي عن يحمك وشيء مايو ونقع صومنا صلاة يهدي عبادة وتاجن خيرنا ما أقوم بالليل هاي تبتنا النبي وشان النبي عليه الصلاة والسلام ويشير على لسانة قوة صح معها قرآن كان تقوى آخر ده هو هبين كستان كتورا بولا ورد مايا كده بالدي بشي مرد ما قرآن كا مركز سوري مايا وان كحوق بدني إيدا إلهي رسولك سيو حوقي كفايدته هذا دوريتك عشان ما بالدي ما إلهي رسولك سيو إيدا وحوق بدني كفايدته تضبط كي مرد ما وحوق بدني كفايدته والمرصد هدي عشان مرد ما بالدي ما وان حوق ورالك على مرد في ملوكي سدا عشان مرد في كتشوك وحلقوا يدي ور ما نصوما وانا نفرح ده نوح الله تلمامي الرايت ويجا يسوق الصون هي الصلاة هي قرآن أخرس كتير وحلو شيء جيا حقوق كلاين اللونطي ما هصون هي صلاة دين حقوق ده كلا لومس سلمان الفارسي أيانك إلا لو ولا لي أبو الدرداء أبو أيوب الأنصاري بس أبو الدرداء أيوة الله ساحر هبين بويمي دبتنا وحاركي حاسكي سيو مريا اسكا كوي لغو شقي جري اسكي سيدتا دي قبر لقبابا عنو اكي حاد عيبو وهي تري والالكا الدنيا دان كماله آخركم مشغول سيئ مالك علي هبينكي والله ساحدا إن يربى مركي لا تشيفو سوبود سحابي دبتنا صلاة بسيري حلو وار ساحبو كويلي صلاة لينا اسكا ساحو وكعلي أبان مركي لا تشوفو سوبود وار ساحبو كويلي وساحي غور دنبه أيوة كاعمك ما لا تكاد دبتنا وكل ورد جيسو نفط دون حق بيك وقولاته إذا كمورن هبين ودن سوتشي ده هبين كي نفط والراحة إن إلهي عابد نفط حق بيك وقولاته إلهينا حق بيك وقولي خيرك أقول حق بيك وقولي يموت الماء وحن وحقوق مدول بلغار هبين تقول بسو سبحي بالله شيء النبي عليه الصلاة والسلام سلمان رمبو شيء يقولي سيداو سلمان شيء صحة وحن قدر لي ضل يرد حق عبادة تمادانا تطرف كان كله كودعة إنه إذا أنا وتعليم تبغى مسكديني وحبرا مايو أمل لو حوك ستيج مايو ناقة قوما مالها مرة ما حد قوان تبعتنا سوشيال كاتبر يسا تبعتنا مسات كان نحفر يسا هذا ليس بدين وحصح معها
وصح معها عبادة يسو صح صلاة هذا إلى شو صوم كاغا إلى شو بين هالشيء رون شيء عبادة يسو لكن الله شيء أكتف تيجي هو عبادك لك قيب قاضو والدك وصمفل مجتمعك وصمفل ضدك وحقبه إذا وحنا لنا كسو كوبا يا أختي جواز كنا بعد ما في لياهي شاب نشأ في عبادة الله با أمانا لكن لبدا تطرف من الدين تكون أمانا إن الله شردن one sided كدكتو ونلا شردن أتسقورا واركتو نلا شوال لينو اتحام ابتلاء قد ما أنتي نتجشوا الله تعالى قال أنا وحن كتير يا أون هالك كاني صح معها سأوجد وحن لنا dadka ammaanani waa dhalinyarada ilaahay caabuda ee aakhira ammaanta leh cibaadadooda si dadka kale toddobada mawaaqif baa loo sugayay iyaga mowqif gaar ah looma sugan cibaadadooda mutlaq baa laga dhigay waxa cibaadadooda mutlaq looga dhigay weelnay inay noloshoodan ilaahay u hogaamiyaan labada tarafba waa xunyiin marka in tarafka cibaadada uga dhacdo tatarruf baxdid iyo in tarafka kale uga dhacdo tatarrufka waxa sababaana qofka dhalinyarada isagu iscajabiyo isku filaada oo aan weydiinin dadka ahlu cilmiga aqoonta dhaame agtiisa jooga aan wax weydiin way hagi lahaayeen waxa sax ah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin